ciidamada difaaca Puntland oo bari iyo galbeed ka jooga toga baalada kana wada howlgal lixaad leh ayaa la wareegay ceelka Garooba, ceelka Dhasaqa, lugta Dhaanaan, deegaanka Ablaaye iyo buuraha Dalfale oo ka tirsan buuraha Calmiskaan ee toga baalade, kuwaasoo khawaarijta Daacish u ahaa fadhiisyo muhiim ahi. sidoo kale ciidamada ayaa gacanta ku dhigay godad iyo goobo u ahaa kaydadka saadka iyo difaacyo ay ku ilaalin jireen dumarka iyo carruurta, waxaana ciidamadu ka raad joogaan firxadkooda. dhinaca kale saaxiibada caalamiga ee Puntland ayaa fuliyay duqeymo lixaad leh oo lagu burburiyay fariisyo hor leh oo ay lahaayeen argixisada Daacish. wajiga afraad ee howlgalka Hillaac ayaa ku socda si dhaqso ah iyadoo ciidamadu toga baalade ka joogaan laba jiho oo ay ka fulinayaan gulufyo xoogan oo lagu ciribtirayo kooxdaasi firxadka ah ee taagta daran ee Daacish. saraakiisha hogaaminaysa howlgalka ayaa ka warbixiyay guulaha ay gaareen ciidamada difaaca ee Puntland. wareen Ilaahay waa mahad iska leh. waxaanu ku jirnaa operationno, waxaanu soo qaadnay guluf laba dhinac ah. gulufka iyagu hadda waxaanu soo sifaynay oo soo marnay waxa weeye ceelka dul Darayle, Gambara, Dulweyne iyo deegaanka Dhaman Qooxle. intaas bacagtaanu soo marinay. waxaanu kala tagnay oo shalay maaha duraad howlgal ka sameynay ceelka la yiraahdo Dhasaqan oo aanu laba kamid ah kaga dilnay dhagar qabayaashii, intii kalena waa naga farxadeen. waxa kale oo jira waji labaad oo xagga Miraale ka soo baxay, waxayna soo sifeeyeen dhul badan. waxa kamid ah Dhanaane, Ablaaye, waxa kale oo kamid ah Dalfalo iyo ceelka Garooba oo hadda ay ku sugan yihiin. howlgalkaas waa soconaya, joogsan maayo. wajiga afraad baan wadnaa oo ciribtirka ah, mana dhamaanayo inta qof argagixisa ah oo buuraha Calmiskaad iyo Calmooda ku nool yahay. howlgalkaan mid istaagayo joogsanaya ma aha, waa soconaya ilaa kan u dambeeyay aanu ka soo qabanno. waxa haray wax yar oo ku teesan toga baalade, iyagana waxa weeye hadda waa ku hareeraysan labada dhinacba waa ka joognaa. waxa weeye waana isku geynaynaa inta waana qabanayna insha Allah, waana guuleysanaynaa. wax yar baan noo haray dalkooda iyo dadkooda diintooda inay u shaqeeyaan. haddeertaan inta sargaalkayga sareey haddeertaan uu ka soo hadlay oo soo sifeeyeen, haddana waxay moraal u hayaan inay ku daraanin goobaha hadda cadawgu haysto oo labada dhinac ah oo u dhow Boosaaso, Shakaala oo anagu hadda aan wax yar u jirno. ciidankii baaladana ayaa dhinaca kale foodo kale ku soo hayaanin. bidinilaahi kariim waxaan rabnaa inaan halkaas anagoo dhammaan calaamaleynayna inaan kaga degano Boosaaso ka galno maxaan ku idhaahdaa Jarraacda. waxaan rabnaa inaan ka sifeyno cadawga dalkeena anagoo moraal u hayna dhammaanteed saan u wada dhannahay sargaal ilaa maxaan ku idhaahdaa askari inta ka dhexle. moraal waxaan u haynaa inaan baabi'ino aan ciribtirno inta yarta hadhay xabad baa meeshan ku hadhay haddeertaan intaan waa ciribtirno insha Allah bidinilaahi kariim. guud iyo gobonimo maanta waxa qaadnay howlgal balaaran baa qaadnay oo ciidamada Puntland soo qaadeen, meel kasta ka soo qaadeen oo dhan walba. waxaan ka duuba jirnaa inta yartu hadhana waa ka duuba jirnaa ciidamada Puntland soo qaban doona insha Allah ciidankiisa. إن شاء الله إذا قول دونا واحد قول بأنا قارن دونا إن شاء الله. الله أكبر الله أكبر قول. الوجود غيّي لما انتوض وحلي هذا خسارة بان بكو قاري ميت كودي لو عودي وحيا لما تقارنا يعقب كودي حالتنا أوكي ويا والصودا وشرمان وحلي هذا وحنا وقارينا بالآدم هتشوق دانير كي علايين بان وقارينا بالحالة دي دلك هاي صودا يسكده درجة واحد صوتنا سوريزة حاجة ولا جيمد. marka daayarada buuraha soo fulay waa dhamaanayaan waana dhamaadeen wabillahi tawfiiq. ciidamada Puntland waxay soo qaadeen howlgal balaaran oo saddex geesa. waxay ka soo baxeen meesha la yiraahdo Quraar, waxay ka soo baxeen meesha la yiraahdo San, waxay ka soo baxeen Daadar, waxaan ka soo baxnay meesha la yiraahdo Gasaqabad iyo Kala Gur. wabihii lagu duqeeyay meydkoodii godadkii baa ku dumay. laba meelood baa hadda saak aragnay oo labada meelood baa godki ku dumay oo ay ku jiraan. dhammaanna waxaan shacabka reer Puntland iyo dadka reer Puntland u ballan qaadaynaa haddaan nahay ciidamada Puntland inaanan ka harin, daba galno god kastay galaan iyo ceel kastay galaan iyo meel kastay galaan ugu galno ilaa aan ka dilno kan u dabeeyana ma ka soo laabanayno. waxaan kaloo aan sheegayaa oo halka ka cadeynaya ceel kasta oo ku yaal Calmiskaad inta noo dhiman inta qabanay waa qabanay, inta noo dhiman dhammaan waa qabanaynaa. ilaahayna waxaan ka baryaynaa si guul iyo gobonimo aan u qabanno. waxaan leenahay Allahu Akbar Allahu Akbar.